Door wanaagsan haysaa oo dhantii meel kasta dunida ka joogtaan fadlan hadday tahay daawashada kuugu horeysa channelka subscribe inuu saas oo asxaab badan u gaaro intaas waa ku mahadsan tahay sidaa maad ka warqabtaa waa maalin sabti ah waxaana jira horyaalada ugu waaweyn ee caalamka laga ciyaaro intaana ka ahayn horyaalka loogu jecel yahay dunida ee Premier League marka Premier League sidaa ka warqabtaan wuxuu maanta u baaqanayaa geerida ku timid boqorada Ingiriiska marka waxaana dib laskugu soo laaban doonaa isla bishan 16 ayuu dib u furmi doonaa marka laakiin sida kale horyaalada kaleeta laga ciyaaro caalamka sida La Liga iyo Bundesliga iyo Serie A horyaalka Portugiiska iyo intaba wixii kale waa iska sidooda waxaan ugu horeeya maanta anaga 10 kooxood miiskiina saaran Bayern Munich iyo Stuttgart sidaa ka warqabtaan Bayern Munich kulankii horeeto isbuuc hore ciyaareysay Braga ayay gashay marka shaxdeena caawa waxay sheegaysaa Bayern Munich in Stuttgart ay ka badi karto 100%. Tan kale asxaabay marka shaxda soo dhigo kale adiga waa bedeli kartaa waxaad ka dhigi kartaa Bayern Munich hadaa ku qanacsan inay badi kareen maxaa double chance waa saari kartaa kala badan waa dhigi kartaa 2 gool ka imaanaysa waa isticmaal kartaa both team to score kale waa iska dhalina waa isticmaal kartaa laakiin muhiimada waxaa shaxda muhiima inaad ku qanacdo hadaad ku qanacdo hal iyo laba inaad wax ka bedesho mid kale aniga shaxdan soo dhig kaliya maskaxdeeda ma ahan meelo badan ayaa soo fiirshaa meeshii marka loo bato aaba xataa wax ka sii dhibaa tusaale labadan koox markii la dhaho kooxdana badanayso hadaa ku qanci waaye xitaa waxaan saaraa isla kooxdii waxaan saaraa double chance saaraa sooma hadda tusaale Atletico cawada ciyaarayso shaxdeen way ku jirtaa waana arki doontaan Atletico kale way badanaysaa 100% score laakiin double chance ay saaraa waana arki doonaa wax walbaba waxa isleeyahay way imaan karaan marka intaas soo kuma santiin tan kale waxa ku xigta Cadiz iyo Barcelona oo sanadkan yara kacsan oo la aamini karo marka Cadiz marka shaxdu waxay sheegaysaa Barcelona caaw inay guuleysan karto 100% marka Barcelona way guuleysanaysaa Cadizna caawada waa laga badanaysaa sida ay shaxda sheegayso tan saddexaad waa Real Madrid aska taqaanaan iyo Mallorca Real Madrid oo ah koox awood badan oo ka ciyaarta horyaalka La Liga iyo Mallorca marka shaxda bidcad waxay sheegaysaa Real Madrid inay 100% badi karto ma ku soo haray Paris Germany iyo kooxdan Stade marka Paris waa ujeedaan sadar su'aalka dhan waa 96 dhuruq ayaa saaran gurigeeda way joogtaa marka Paris war lama gelina war badan kama dhahayno waa ka gudbeynaa Hertha iyo Bayer Leverkusen shaxda tusaale tan oo kale Bayer Leverkusen caawa way badanaysaa la yiri 100% dhowr meel oo soo fiirsho way badanaysaa unlike double chance ay saar wax walba laga yaabaa marka muhiimada odds-ka macaan muhiimada waa guusha marka anaga guushaan jecelnahay waa ka gudbeynaa waxa ku sii xigta Inter Milano iyo Torino wallahi waa kulan iska adag Inter Milano gurigeeda joogta iyo Torino hadda dhibcaha markii la fiirsho taa waxa badan Torino isla hadaan qaldaneen marka laakiin Inter Milano caawa sida la saadaalna inay badi karto aniga laakiin wax walba laga yaabaa double chance ayaa ii saaran because idinkana ciyaaro badan ku qos qaadateen xalo kale shaxda soo dhigay kooxdii ma hadda ma xasuusto ugu horeyso kale way badinaysaa iga qoraadi ayaa idin dhahay wayna badisay marka Inter Milan caawa sida shaxda sheegsina badi kartaa kan double chance ay saaran laakiin aad harto ka dhigi kartaa waa tan Atletico kale hadda ka hadlay Atletico shaxda sheegaysa caawa inay badi karto laakiin double chance ay saaran way u saaray wax walba ay ma karo marka wax walba ay ma karo lost marka diidanahay markasta wintaan jecelnahay saas awgeed ayaa u saaray Atletico Madrid waxa ku Ajax war gelmeen iyo Ajax waxa waaye caawa waxa noo saaran badis wayna badan 3 gool iyo 4 gool hadeen ku badinimo waxa ugu dambeeya Napoli Spalletti marka Napoli-na caawa sida shaxda sheegaysa inay badi karto kooxdan kale laga badi karo waxa ugu dambeeya Sampdoria aan iraahdo iyo Milan caawa shaxda waxay sheegaysaa oo away ah inay ka badi karto Sampdoria oo Sampdoria laga badinayo caawa ay badinayso Milan marka maanta shaxdeena halkaas ayay ku eg tahay adiga marka waxa rabtaa ka dhigi kartaa waa bedel kartaa 10 kooxood marka saan u aragto kale shaxda ugu macquulsan ee soo galay sida dadka ay u bateen ma dhihin waa ka sii dhimi
tusaale kale Atletico markii la badinaysa la dhahay waxaan saar double chance. Bayer Leverkusen oo kale way badinaysaa ay dad badan oo expert sheegeen laakiin aniga waxaan dhahay anoo double chance saarta. Marka wax walbaba sida loogu talagalay marna u dhacaan xillina uma dhacaan laakiin meesha ugu macquulsaneed ayaan ka soo qabtaa. waa mahadsantihiin koodkana waa kaasaa waa guuleysanayna aad baa u mahadsantihiin.